السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب قالي أهمال والبو الدنيا كجوكتد إيه وقتي والبا أي كوتهاي صاحب قالي كسو دو يوتيوب جنال كيغا وحانا هاي عامر محمد ربلي هل كاد إيغا داوانيسو صاحب قالي وعامر ربلي جنال صاحب مانتا كسو دو برامج كيغا واد أركتا وحا ميشان كبابانا waa calanka quruxda badan ee wadankeena macnaha waxay ka dhigantaa inaan ka hadli rabo wadankeena taariikhda uu leeyahay wadanka annaga aan leenahay ee aan milkida u leenahay ee ku yaala bariga Afrika taariikhda uu leeyahay taariikh intee leeg uu leeyahay maanta haddii aan wareysto qofka Soomaaliga ee aan iraahdo ka hadal taariikhda Soomaaliga wuxuu ka hadlayaa Axmed Gurey si Maxamed Cabdulla Xasan Maxamed Siyaad Barre aadan cadde waxaan doonaynaa intaasi wixii ka horeeyay inaan ogaano halkee wax ka soo bilowdeen yaa ka talin jiray Talyaaniga ka hor Soomaaliya Talyaaniga kadib yaa ka talin jiray sidee iskugu xigeen talisadii soo maray wadankeena Soomaaliya dadkeena dad noocee ah ayay ahaayeen maxaa laga ganacsan jiray waqtigaasi intaba waan ogaan doonaa saaxiib qaali ah kusoo dhawow mar kale barnaamijkeena quruxda badnaa ee taariikhda Soomaaliya saaxiib la socod wanaagsan saaxiib qaali ah kana waa calankeena Soomaaliya kusoo dhawow mar kale saaxiib qaali ah waxaan ka hadlaynaa waa wadankeena hooyo waxaan ka hadlaynaa 2500 before Ciisa 2500 before Chris ayay yiraahdaan ama before Ciisa dhalashadii Nabi Ciise ka hor dhulka Soomaaliya waxaa loo aqoon jiray land of Punt waxaa loola jeedaa dhulkii udgoona taariikhyahanada qaar ayaa waxay dhahayaan dhulkaasi magaciisa waxaa la dhihi jiray ama loo aqoon jiray dhulkii Ilaahay sida baa la dhihi jiray waxaa jiri jirtay waqtigaasi waa 2500 before Ciisa waxaa jiri jirtay waqtigaasi boqortooyo kuwaasoo la ganacsan jiray masaaridii hore dhulkeena wuxuu ahaa dhul leh kheyraad ayna wadamada kale ganacsi ay u yimaadaan waxyaabaha laga ganacsan jiray ama ay wadankeena laga saari jiray ama ba loo sii dhoofin jiray waxa kamid goldiga dahabka kamid aromatic resinka kamid black wood oo macnihiisu yahay alwaaxa madow faanta maroodiga iyo xayawaanada durjooga ayay ahayd waqtigaasi waxyaabaha laga ganacsan jiray waana waqtigii la dhihi jiray land of Punt dhulkii udgoona waana 2500 before Ciisa 1200 before Ciisa waxaa jiri jiray Proto Somali formation waa dadkii hore ee Soomaaliyeed macnaha waa awoowayaashii Soomaaliyeed kuwaasoo ku noolaan jiray dhulka Soomaaliya aan hadda ku noolnahay annaga intaasi marka ay marayso erayga Proto Somali waxaa loo isticmaali jiray si balaaran waqtiga la isticmaali jirana waxay ahayd waa 1 millennium BC 1 millennium BC waa mid kamid xisaabta taariikheed iyo 1 millennium AD waa mid kamid iyadana taariikhda land of Punt waxay 2500 waxaa ku xigtay Proto Somali formation waa 1200 before Ciisa kadib waxaa ku xigtay Microbial Kingdom boqortooyo la dhihi jiray iyadana waqtigeeda waxay ahayd 247 before Ciisa markii ay ka baxday boqortooyadii Microbial Kingdom 247 before Ciisa kadib waxaa imaaday Somali City State waxay ahayd qarnigii koowaad Somali City State ayaa la oran jiray waxayna ahayd qarnigii koowaad intaasi maxaa dheer waynu ogaan doonaa saaxiib la soco barnaamijka kadib waxaa imaaday boqortooyo la dhihi jiray Sultanate of Muqdisho waa qarnigii 9aad ayay imaaday Sultanate of Muqdisho waxaana loo aqoon jiray Kingdom of Magadoso ayaa la oran jiray Kingdom of Magadoso waxay ka talin jirtay Southern Somalia Central and Southern Somalia bariga iyo galbeedka Afrika ayay ka talin jirtay waxayna ahayd
mid awood ku leh Horn of Africa, geeska Africa ayay awood ku lahayd. Inta lagu joogay qarnigii 10aad, 11aad, 12aad ilaa iyo 13aad waxaa haystay jiray Sultanate of Muqdisho oo loo aqoon jiray Kingdom of Mogadishu. waxaan rajeynayaa magaca Muqdisho inuu ka imaaday Kingdom of Mogadishu, sidaas ayaan rajeynayaa. markii ay ka baxday saldanadii Muqdisho kadib waxaa haddana xukunka qabtay qarnigii 17aad boqortooyadii weyneed ee la dhihi jiray Sultanate of Galadi. boqortooyadii Galadi waa 17 qarni 17th century ama qarnigii 17aad. waxay ahayd boqortooyo Soomaaliyeed taasoo xukumi jirtay qayb ka mid ah Horn of Africa ayay xukumi jirtay inta lagu jiray qarniga 17aad ilaa iyo 19aad iyada xukumi jirtay. waxaana aas-aasay askari ka mid ah Galadi, magaciisana la dhihi jiray Ibraahim Adeer. waa ninka aas-aasay boqortooyadii Galadi. waxa uu ku guul dareystay dagaal uu la galay boqortooyadii Ajuuraan Sultanate. dagaal uu la galay ayuu ku guul dareystay, wuxuuna aas-aasay qasri la dhihi jiray The House of Gabron la dhihi jiray ayuu aas-aasay. markii uu isaga ka baxay kadib waxaa imaaday wiilkiisa, kadibna waxaa sii imaaday wiil uu asaga uu dhalay ee magaciisa la dhihi jiray Suldaan Yuusuf Maxamuud Ibraahim. waa wiil uu asaga awoowo u ahaa ayaa waxa uu galay dagaalo. asagaa boqortooyada qabtay, wuxuuna galay dagaaladii uu waqtigaasi galay waxaa ka mid ahaa dagaalkii Baardheere 1843 ayuu galay. asaga kadib waxaa xilka qabtay wiilkiisa oo la dhihi jiray Axmed Yuusuf, kaasoo lahaa awood ciidan aad iyo aad u ballaaran. saldanada waxay la shaqayn jirtay ayaa la leeyahay Italian Somaliland. xukuumaddii Itaaliya ee xukumaysay bariga Soomaaliya koonfurta Soomaaliya waxay la lahaayeen wada shaqayn la lahaayeen, waxayna ahayd 1908. boqortooyadii waxay idlaatay markii uu dhintay wiilkii ugu dambeeyay ee ahaa Cusmaan Axmed Yuusuf Maxamuud Ibraahim Adeer. markii uu kaasi dhintay waxay ahayd 1910. kadib boqortooyadii way burburtay. ma qiyaasi kartaa awoodda ciidan ay lahayd boqortooyada Galadi halkee bay la ekeed? tirada ciidan ee ay haysatay boqortooyada Galadi marka intaysan dagaalka galin ka hor waxay ahayd 20,000 oo ciidan. markii ay gashay dagaalo tiro badan ciidamadeedii way kordheen, waxay noqdeen 50,000 oo ciidan ama troops. ninka aas-aasay magaciisa waxaa la dhihi jiray Ibraahim Adeer, wuxuuna hayay qarnigii 17aad ilaa iyo 18aad. kadib waxaa qabtay wiilkiisa oo la dhihi jiray Maxamuud Ibraahim Adeer, wuxuuna hayay asigana qarnigii 18aad ilaa 1828. kadib waxaa sii qabtay wiilkii uu sii dhalay oo la dhihi jiray Yuusuf Maxamuud Ibraahim Adeer, asigana waxa uu hayay 1828 ilaa 1848. kadib waxaa qabtay wiil uu haddana sii dhalay la dhihi jiray Axmed Yuusuf Maxamuud Ibraahim Adeer, asagana waxa uu hayay 1848 ilaa iyo 1878. kadib waxay soo gaartay sida loo kala dhexyeelayay boqortooyadii ama saldanadii Galadi waxay soo gaartay dhammaadkii. waxaana ugu dambeeyay wiilkii ugu dambeeyay ee ka imaaday faracii Ibraahim Adeer ee la dhihi jiray Cusmaan Axmed Yuusuf Maxamuud Ibraahim Adeer, asagana waxa uu hayay 1878 ilaa iyo 1910. astaanta ciidan ay lahayd iyo calankeedii shaashada ayaan idin soo saari doonaa insha Allah. markii kadib waxaa kala jirtay saldanada la oran jiray
ajuuraan saldanayd waxayna ahayd qarnigii 18aad. waxay ahayd boqortooyo Soomaaliyeed kaasoo ka talinaysay qayb ka mid ah Horn of Africa. waqtigana waxaa la dhihi jiray Middle Age. saldanadaasi dagaalo dhowr ah ayay gashay wayna ku guuleysatay. dagaaladii ay gashay waxaa ka mid ahaa Resistance of Oromo Invasion, duulaankii Oromadii ay soo qaaday, kaas ayay gashay wayna ku guuleysatay. waxay kale gashay dagaal ay la gashay Boortaqiis oo ah 2 jeer ayay Boortaqiiska la gashay, labada marna way ka guuleysatay. waxayna ahayd saldanad ama boqortooyo awood leh. caasimadeeda waxay ahayd Mareeg, Qalaafe iyo Marka. saddexdaas ayaa marba mid caasimad u ahayd. markii hore waxaa ahaa Mareeg, kadib waxay noqotay Qalaafe, kadibna waxay noqday magaalada Marka Caday. waxaana la aasaasay qarnigii 13aad ayaa la aasaasay. dagaalkii ugu horeeyay ay la gashay Boortaqiiska First Ajuuraan War Boortaqiis waxay ahayd 1538 ilaa 1557. intaasi ayay dagaal la gashay. dagaalkoodii labaad ee la gashay Boortaqiiska waxa uu ahaa 1880 ilaa 1580 aan yiraahdo ilaa 1589. dagaalkii ee la gashay Oromo waxa uu ahaa dhexdii qarnigii 17aad dhexdiisii ayay la gashay. intaba wayna ku guuleysatay. markii ay meesha ka baxday boqortooyadii saldanadii Ajuuraan, waxaa kala jirtay saldanad kale oo la dhihi jiray Hobyo. saldanadii Hobyo 1900 aan iraahdo waa qarnigii 17aad bilowgiisii ayay ahayd. waxaana la dhihi jiray Sultanate of Obiya, sida luqadda qalaad lagu aqoon jiray waxaa la dhihi jiray Sultanate of Obiya ayaa la oran jiray. waxaa aasaasay 1870kii Yuusuf Cali Keenadiid nin la dhihi jiray ayaa aasaasay. wuxuuna in adeer la ahaa ninkii haysan boqorkii saldanadii Majarteen boqorkii xukumi jiray ee la dhihi jiray Boqor Cusmaan Maxamuud ayuu in adeer la ahaa. kadib waxaa afgambiyey ama dowladdaasi saldanadii Hobyo la kacay local Hawiye Kalayn. qabiilka Hawiye ayaa la kacay oo boqortooyadii ka awood badiyey. inta ay talinaysana waxay ahayd 1878 ilaa 1925. caasimadeedana waxaa capital u ahaa Hobyo iyo Gaalkacyo. sida ay xukunka usoo kala hayeen 1890 ilaa 1900 waxaa hayay Yuusuf Cali Keenadiid. 1900 ilaa 1925 waxaa hayay Cali Yuusuf Cali Keenadiid. intaasi markii aan marayna kadib waxaa noo xigtay British Somaliland oo iyadana ahayd xukuumad markaasi jirtay. intaba waxay lahaayeen astaamo ciidan iyo astaamo kale, intaba way lahaayeen. British Somaliland waa 1884. waa Ingiriiskii haysan jiray Somaliland ama waqooyiga Soomaaliya. 1884 ilaa 1941 ilaa 1960 ayuu ka talinayay British Somaliland. caasimadna waxa uu ahayd Hargeysa. waxaa kala meesha ku jirtay markii uu jiray British Somaliland waxaa jiray Italian Somaliland oo ah Talyaanigii xukumayay koonfurta Soomaaliya. asagana waxay ahayd 1989 ilaa 1960 oo ah waqtiga ay xorriyadda qaateen. waxaa jiray marka Talyaaniga dad hogaamiyaal u ahaa. 1989 ilaa 1900 waxaa hogaamiye Talyaaniga u ahaa Umberto I nin la dhihi jiray oo Talyaani ah ayaa ahaa. kadib 1939 ilaa 1946 Victor Emmanuel ayaa haddana ahaa. waxaa jiri jiray governorro soo kala maray 1989 ilaa 1893
1896 ilaa 97 waxaa governor ka ahaa nin la dhihi jiray Benvenuto Villanardi. 1940 ilaa 1941 waxaa heli jiray Carlos de Simoni ayaa heli jiray. waqtigaasina waxaa la dhihi jiray New Imperialism. waqtigaasi wixii ka dambeeyay Soomaaliya waxa ay qaadatay xornimo 26 Juun 1960 waxaa qaatay goboladii waqooyi. 1 July 1960 waxaa qaatay koonfurta Soomaaliya. Jabuutina 770 ayay qaadatay. sidaasi waxaa ku idlaaday boqortooyadii iyo xukuumadii hore. kadib waan garanaynaa xukuumadii soo maray Cabdulaahi Ciise Aadan Cadde. intaas ayaan kusoo koobayaa taariikhdii waqtigii hore ka jiri jirtay Soomaaliya. waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga bogateen, aadna la socon doontaan barnaamijkan. waadna ku mahadsan tahay maadaama ay daawanayso saaxiib qaali ah. fadlan subscribe saar, gambaleelka furo. baaritaan dheer ayaan sameynay, ayaan kusoo ogaanay intaan. marka saaxiib qaali ah waxaan kaa codsanayaa inaad janalka subscribe aad saartid. waxaan jeclaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu janalka ku kaco oo uu meel sare ku gaaro. ma garanaysaa waa calankeena Soomaaliya. waa waxa kaliya aan jecelnahay mar walba. waa astaanta aan uga duwannahay wadamada kaleeto weeyaan. saaxiib qaali ah, subscribe isar, gambaleelkana furo. kana waa calankayga. waxaan ahay Soomaali. waadna ku mahadsan tahay daawashadaadii. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.